daawadayaal waa markaliya barnaamijka xikaayaadka qisooyinka murtida iyo maada iyo konton sheekiyo sheeko madasha kulankeenna waa Somali News TV ka baaqanmeel barnaamijka u diyaar garooba waa sheekooyinkii iyo kuwii xulka ahaa ee aan idin xulay oo aan filayo in aad uga heli doontaan toddobaadka sheekooyinka aan idin hayo waxaa ka mid ah sheekada halkudhigeedu uu yahay dibina ma kuu quuri waaye waxay noo raaci doonto sheekada ninka haddaynu ka gaadhno ilaahayd waxaynu idinla ku darin doonaa dameerkii doobilaha saddexdaas sheeko iyo toddobaadkan iyo anoo idin leh afeebtaydii dardaarankan had iyo jeer idiin sheegi jiray markaa guryaha kusoo hoyataan fiidka idinkoo gafuurka taagayo jaad ka soo dirdiray naxliga qabyaalada maantoo dhan hadalhayay siyaasad iyo qaadaadhigeeda kusoo wareeray markaa aqaladiina kusoo hoytaan caradaha kula dhaceyna carruurtiina soo qaata konta sheekiya sheeko kitaabka halkudhigiisa ee laba ka mid akhrista idinku qosliya seexda aynu guda galna barnaamijkeena waxaan inoo hayaa sheekada koobaad waa nin waya halkudhigeedu libaxa korriimadiisa iyo noocyadiisa waa wada garanaysaan oo idinku raagi maayee dhadiga waxaa layahaa gool waa libax labkiisana waxaa layahaa gool ama libax libaaxa yar ee soo koraya ee labka ah waxaa layahaa ama dhadigaaba cagabaruur baa layahaa cagabaruur ayaa layahaa sida bini aadamka u rabayo ubadkiisa ayaa xayawaanaadkana ilaahay uu u sakhiraa ubadkooda oo ay tababaraan ilaa ay gaalayaan isku filaadaan haddaad u fiirsato aad baad xugo kaaga kordhayaan oo waa aayad ka mid a aayadaha ilaahay in lagu rumeeyo in xayawaanaadkiisa adeegto libaaxaas wuxuu ka mid yahay xayawaanaadka loo yaqaano dugaaga ee haddana qoyska ah ee qoys ahaan isu raaca ee hooyadii aabbihii iyo ubadka isu raaca ilaa ubadka ay korayaan markaas subax qoys libaaxyaa oo godkii ay geli jireen hortiisa ku legdamaya oo ciidda fadhiya oo qoraxda isu dhigaya dhaxan bay haydeen ayaa libaax yaroo cagabaruuri kolle hooyadii ka boodaa kolle aabbihii libaaxaasi markaa xoog buu isbiday intuu hooyadiisa hor fadhiistu yidhi hooyo ma cidiga xoog urun baa jirta xooggaygu intuu leegay maaragta markaasay tiri waa cagabaruur baa tahay fadhiiso oo joog tababarkayga waa dhamaystoy maantana anaaba caawa haddii qoraxda cadaana ii soo gaadhaya waxay waa joog maaha weli tababarka wuu kuu dhimay waxna maad arag markaasuu hooyi waxaan dilay dabagaale ilaa maroodi baan dilay tababarka ii dhimani muxuu yahay markaasay intii qosashay tiri nin miyaa kulanteen weli asuu ninku waa maxay markaasay tii waxaa maydaan kulmin lahaa daba joog haddaaban doonanayaa buuri orad buu isdhigay sidii u sii ordayay afarqaadii ayaa wuxuu ku soo baxay ari meel daaqaya waxaa ku dhex arkay orgi weyn oo geesa dhaadheer orgigiibuu sabtaagu yidhi war ma nin baa ta orgigibaa intuu garhka ruuxu qosla yidhi ma aniga markaasuu hay ma nin baa ta markaasuu maxaa nin iga dhigay arigiisaabaan he isagaabay raacdeen libaax yaraa oo yaaban ayaa haddana sii orday cabbaan markuu orday wuxuu ku soo baxay dibi buurtaa leegu xooga dibigibuu sabtaagu yidhi dibiyow ma nin baa ta dibigii baa ku qosla yidhi maya adeer anuu nin miihi beertaabay igu qotaa midarka beerta ayuu igu qotaa midarkan calaamadda qoortaygaga taalla waa harqoodku isaaro anaaba u qoda beerta wuu yaabay libaaxi yala oradkii wuu joojiyey isagoo markaa guclaynaya ayaa waxa uu ku soo baxay awr reer dushii ku dabran isuu qoordha xerada waa kan awrkubiisu waryaha ma nin baa ta awrkii war nagala tago wareerka xaggaan nin ku nahay waabu na rartaa annagu na rataabe wuu baqay libaaxi markaa libaax yaraa cagabarurka ayaa baqay isagoo isla iskaga soo noqotid ayaa reerka wuxuu ku arkay aqal weynoo ku yaala oday ka soo baxaya wuxuu galay oodii reerka wuxuu ka hortegay odaygii markaasuu odaygiibu ku yidhi nin ma taqaanin markaasuu maxaad weydiinaysa ninka hortaaganna ninka laguu sheegaya ninka aad sheegaysa waa aniga ma waxaa la faaninayey ee waxaan soo maray dhan ka wada daqayan ma adiga bas war ma garay waxaad ka hadlaysee nin waa aniga haddaa laba kuu kala goynayaa libaaxi baa ma waxaa gari taalkan la hadda labaan kuu kala jaraya odayga baa qosol dhamaysaa lama yeelee weli maad balan rage waxaad yeelaysaa halkan iska fadhiiso
martibaad tahay wartaanku marti sooro dagaalkani waxaad la socotay waraysuna haynoo dambeeyo libaax buu daashanay fadhiistay aqal ka dambeeyay libaax u galay oday quraarad gaas ku jiro soo qaatiyay kabriij masuunti saa ugu daasho kabriij ku qabtir waa kaanin hadaba libaaxii ololiya ayaa aabihii hooyada ku dhaxlay ciid bay ku sobeen bas hooyo ninkii waan soo bartay xikaayaadka qisooyinka murtida iyo maada iyo sheekada inoo dhaxaa ay laabina balanteena waa Somali News TV iyo saacadahan oo kale sheekadeena labaad waxa liyaa dibina ma ku quli waay waayihii lixdameeyadii ingiriisku markuu kacay Somaliland Soomaaliya iyo Somaliland ay midoobeen dad badan baa halkan ka tagay Hargeysa oo tagay dhinaca koonfurta ilaa 88 markaynu halkan ka qaxnay iyo 19 intaan ka soo noqonayna dadkaasi way soo qulqulayeen way soo noqonayeen laba dawlad bay maanta nahay bariga qisooyin badan baa ka dhaxdhacay labada ummadood ee la sugayay dadkii halkan ka tagay bariga qabanaya koonfurta dumarkeena Somaliland oo ilaahay aqal siiyay ayaa ragga ka dhaadhiciyay yiri iyagoo doonaya ragooda inaan laga la tagin ayna dhulka markaa tagto ragga halka ku nool wala sixra dibida laga dhigaa dibi iska ilaaliyo dumarka dhulkaas yaari dibida ka dhigin waa sheekooyinka ku tirikuteenka la sufidiyay laba nin oo hadaba shaqaale macallimiin ayaa halkan laga bedelay 70 oo loo bedelay gobolada koonfureed wali kuwa beeraleyda ugu sii fog meel tuula lagi oo qof ay afkartaan oo halka ka tagay aanu joogin laakiin dadka koonfurta wada degan yihiin labada macallim iyaga mudul bay wada kareysteen oo seexan jireen dardaarankii hooyooyinkooda halka kala tageen bay qabeeno xaafad kale umay wareegi jirin cabsida qulay qabeeno waxay in dibi laga dhigo oo dabadna halka lagu haysto muddo markay saa u joogeen qadada iyo quraacdana waxay ku darsadeen nin isna askari ah oo loolan jiray Axmed oo tuulada joogo isna reer Burca ay aqalkiisa qadii quraacdii cashada ka cuni jireen cashada haddii afka qaadana aqalkooda shay geli jireen ilaa subaxina kama soo bixi jireen halkan hadaba la ku qaatay dadkeena ee shaydaanku uu diray jaadka ayaa tuuladii maalin yimi labada nin kamid ah ayaa jaadka cuni jiray kiiba jaad u fadhiistay Xuseen baa loo jiray fiidka markay soo casheeyeen ayuu intii jaadka u hadlay cabaar fadhiyay sigaarkan uu cabi jiray sigaarkii baa ka go'ay markaasuu ku yidhi inankan kale Maxamed baa loo jiray Maxamedow sigaar baan doonaya kasuu wariya Xuseen miyaad ilowdi dardaarankeeni war inaad iro tuuladan garan mayn ayaan dibi laga dhigan iska joog markaasuu war laga taaniyo sigaar baan doonana aduu ka baxay abaar markuu maqnaa ee kiina aqalka ku jiro walwalsana ayuu sanqar maqlay Axmed waxaa Maxamed sanqar maqlay sanqadii buu maqlo waa mudulkii deganay waxa ka horeeyay barande xagga daash baliya ayaa ka horeeya waana cad toojna wuu la soo baxay wuxuu arkay dameer taagan dameeruna waa kuwan ilmeeya had yeeshee ma ka timaado dameerkii buu ku qabtay toojka markaasuu tallaay oo magacaybe wariya Xuseen war ma dameer bay ka dhigeen labanadu qabtay war dibina ma ku quuri waayeen war imsaan ku lahaa joog oo intaada hadda maxay taraysa toojkii intuu tuuro carray wuxuu u tagay ninkii ay cuntadu wada ku darsadeen isna halkeena lahaayay Axmed waxa leeyahay oo aqalkiisa jooga markaasuu Axmedow ninkii Xuseen Socoy maxaa dhacay dameer baa laga dhigay waan kari waayo sigaar buu doontayo waa halkii uu taagay aqalkiisa oo dameera ninkiina uu naxay la sabsay ka rumaysan yahay uu soo ordeen intay maqnaayeen ayaa Xuseen kana soo noqday wuxuu arkay dameer kale ka taagan wuxuu mooday intuu maqnaa in Axmed dameer laga dhigay dameerkii loo qaaday ma qabsaysna wal ma dameer bay ka dhigay dibina ma ku quuli waay inaadeer ma intaan ka maqnaa bay ku heleen isagoo saale ay labadii kala dul yimaadeen dameera dibina ma ku quuli waay barnaamijkeena xikaayaadka qisooyinka murtida iyo maada ha ilaabina balanteena madasha kulankeena iyo TV-gan ay ka daawataan oo ah Somali News TV hase yeeshee waa dardaarane fiidka markaa aqaladiina ku hooyanaysaan idinka oo marqaansan oo dibray oo findheelanaya tagtaan oo gafuurka taagaya
sicir bararka laftiisuna isoo wareeriyey hadalhaynta qabyaaladda iyo siyaasadda ka soo dibray naxligeeda aradaha kula dhicina carruurtiiyo dumarka soo qaata konton sheekiyo sheeko anaa huba laba sheeko un ka akhrista idinkoo qosliya seexda ballanteennuna waa konton sheeko iyo sheeko